بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جميل بجوكتين وحرجينا دمانتين إن هذا عافمت قبتين ولا المنطقة حروانا كل وذا وهالشيء ورنتي آد مهمة إن شيء جسنا وحكى لمعن ولا واستغفارت الله سبحانه وتعالى رنتي وحنو قال ديستي استغفارت إن حبيبكنا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال مركي ربي سبحانه وتعالى لهلا وحيري مركا إيدا هي مقوريشتي مركز جوكتي بالربي هذا رجحان إركا نقصر أمان عذابه ربي سبحانه وتعالى وجواب يا محمد أنت أتكون حجرتك مع عذابي أنت استغفار سناينه إن أوصل ربي سبحانه وتعالى أن عذاب أي شيء إن استغفارته حكمتها هي وحيابها وقيمها بدن قف كان وحول بأوكو حلو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربي سبحانه وتعالى حنو شيء استغفارت إنه هلو روب حتى روب دونك إن ربي سبحانه وتعالى وروبه كان استغفارت ربي سبحانه وتعالى قفك أولاد باهر أولاد قصية وحول بايك شاب حبيب كان صلى الله عليه وسلم أبو يران طلبات جير أي استغفار جير مالكي لكن ولا روح أركا ولا لبضن waliba baraha bulshada in ay ugu dhawaaqaan si qalad ah ereyga markii la tilmaamayo waa istighfar oo hamsaas ugu horeyso waa ay hoos dhigan tahay ama waa kasra qof walba sidoo yaqaano oo waxay noqonaysaa istighfar balse markii wixii adiga aad sameynaysid adiga aad istighfarsanaysid waxa ay noqonaysaa hamsaas ugu horeyso fatxa ayaa fuulayso kasradii way ka tagaysaa oo waxay noqonaysaa as wali waxaa jiro qalad labaad ee dadka badan ay sameeyaan oo ah fa'dana waan goonta inta badan baraha bulshada markaad aragtid qofku wuxuu leeyahay istaghfirullah balse waxa sida saxda ah fa'daasna inay hoos dhigan tahay ama kasra sidii loo yaqaano oo aysan ahayn fa godan ama dhamma sidii loo yaqaano marka qofku waxa muhiim inuu yiraahdo astaghfirullah marka walaal qaladkaas yar ayaa rab inaan idin wadaago waxaana jiro runtii walaalo badan oo qalad ugu dhawaaqo dhammaan walaalahaas iyo macna anaga Allah subhanahu wa ta'ala ka barina inuu istighfaarteen naga aqbalo rabbi subhanahu wa ta'ala naga dhigo mar walba ku rabbi subhanahu wa ta'ala istighfaarsado waxaan rajaynayaa insha Allah walaal badan inay ka faa'iidaan. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.